horaan uga soo daalnay 1993 ilaa haddana lagu hayay waa sidaa Sheekh Cabdixakiin uu sheegay dhibaatooyinka aan soo marnay dadku hadda ma oga hadda Cabdixakiin mesela waa macallin islaam way ma aha fiilkiisi macnaha jaamacadu muddo wax ku soo bartay laakiin waxa geliyay waa xanuunka markuu arkay inta goor aan ka wada hadalnay xisaab ma leexataa wariyaan dirna macnaha ilaa heerkaas ay naga gaartay ma rabeen inaan halkan ka sheego laakiin heer waxay naga gaartaa inaan macallimiinta xataa rag raadino dhaan hebel macallin noqo hebel noqo waa tan ugu yar marka wixii na soo gaara waxba uma qaadanayno laakiin waxaan idin cadeynaynaa kulli Cabdixakiin uu joogaa Sheekh Cabdifataahna uu joogaa wax dagaal ah oo masaajidda ka dhaxay dad baa ku qaraaban jiray warkaas oo la rabay in muslimiinta lagu tashwiishiyo laakiin wax ka jira ma jiraan masaajidda dhowr iyo 10 sano ugu dambeysay wax xilli ay ka fiican tahay ma jirto oo dhinaca xiriirka wada tashiga wixii soo korro taas waa mid qadiyada walaalkay inuu weydiiyo dugsiyada waa su'aal runtii aan muddo badan raadinay aad u muhiim ah horta waxa ogaataan wadankan wadan xor ah يعني سهدايت دين شيء سيدا أورك الله فرن كان نوال بردوكسي وأساسته أنا كدوكسي هذا واحد مسؤول كنا هاي مساجد ولا بدوكسي وكيا له مسؤول كيها بس مثلا مساجد كرابيضة دوكسي كيال وصح وتحت وحسوه زجليا نظامك مساجد كباسي لدوكسي وكيا له وحسوه زجليا نظامك مساجد أما لكن واحد مقالة كالصعود وخير هرت فربضن وهداني جري لهين عرور بدن قرآن مبارتين وحقيقة جرتوا تاس وأنا أقول ما حد علني إن معلمين تاس يرجع ذلك سمين لكن وح أوجاتان مساجد الناس شقة كلهين دكسي والبواحة كمسؤولة قف كجوجة ما كرد حياة ما قرن كرانية ما دفاعي كرتاس مرتبط ما كرد حياة ما مقل كله وحب ما مقل خير بأن نركب